السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لا أنت مقصود هذا البرنامج كنا جاركا وأنا وهلا نعرف حد على جردا يو عقبتها سوى جها مركعي شقتهم كيه ينتوح برشة كل جهة. برنامج كا ما أنتوحى مرتين وجاه لمع عمر سمطر وكمل حضور على جردا الصومالية. أنا صوح البرنامج كان أنه كمرتي قادمه أن كويتي مدور سؤالات أو تلقى البرنامج كا حقرا حسان يحسن جاركا. نمحو وكسو دوينيا كسو دو حقسهن نيسفو يورال قبسان جيلة وداديكا aad ma santahay walaalkay Xuseen Jeelahage oo ku dhawaad barnaamijkaaga aad iyo aad kaga mahadcelinayaa barnaamijkan farxan ay kusoo bixiseen Soomaalida iyo una qaaska ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku soo bandhigaya fikirkooda iyo maxalada waxyaalaha ka dhex buuxay nimco wadanka doorashooyinka ka dhacay dhalinyarada Soomaaliyeed inteeda badanna waa aad iyo aad waxa shaqalaanta aad u badan tahay intaan u gudub gelin howlaheena caadiga ama dawladdan cusub maxaa ka filaysaa والله horta saa sheegtay walaalkay Xuseen dalka waxa ka dhacay doorasho madaxweyne hore lahaay madaxweynihii doorasho qabtay iyo barnaamijkiisii waa laga soo gudbay madaxweyne cusub hadda soo baxay alxamdulillah rabbil caalamiin dalka madaxweyne iyo wuxuu leeyahay meel lagu hagaago waxa hadda dalka doorasho ka dhacday kulay waxa waaye madaxweyne haduu tago madaxweyne yimid kulay waxaan ka filaynaa kii shalay meeshu joogo email ka sii wacan insha Allah bidnil kareem inuu qof la doortay mas'uul waaye insha Allah inuu dalka gaarsiiyo iyo maxalada doorasho qof iyo cod insha Allah okay sida caadiga ah qofka dhalinyarada noloshiisa markuu soo barbaro iskuul soo gaaro waxa u bilowday halkan intaad waxbarashada ku gudu jirtay caqabadii ugu waaweyn aad ka soo gudubtay in waxbarashada ka reeb isku day hal iyo labo hadan noo sheeg walahi buuda ma santahay saa sheegtay waxa waxbarasho markaad ku jirto waxa waaye halkan ay ku jirtaa waxa waa ujeedada dheer ah leedahay hadaf u socotaa ama iskuul ha ahaato dhexe hoose iyo dhexe sare ama ha ahaato jaamacad heerkeeda kooda ama heerkeeda laga leeyahay heerkeeda saddexaad waxa waa damar waxbarasho bilowdo waa inaad halkan ay ku jirtaa saa sheegay marka wallahi horta waxbarashadeedu wallahi caqabado badan aan dhigi karaa laakiin waxa waaye caqabadii waxa ugu badnaa dhanka finance oo kaleeto wallahi aad u saameeyay marka dhankaas ugu badnaa oo culayska iga soo wajahay inkastoo aan haystay garab waalid aan haystay laakiin haddana maxaa la yiraahdaa waa saameyn ugu leedahay xagga finance okay waa mahadsan tahay waxaa jira dhalinyarada dalkeena inta badan waxay ku hamiyaan in wadamo kala shisheeye ay tagaan sida hadda wadamadan Europe iyo America waxaas ay tagaan adiga wadamada reer galbeedka ay jecel yihiin ayagoo dhahayo wadankeena ka doorbidaya wadamo kale oo isla wadankaaga fursado macnaha fiican ma laha adiga fikirkaas dhalinyarada qab ma la qabtaa mise waxa ugu duwantahay jira wallahi horta fikirkaas waxa waaye waa la qabaa sababta oo la qabana waxay tahay sax waaye dhalinyaradii waxa waaye waxay ma tahriibaan ama si kala ku galaan waxay u wada socdaan reer galbeedka la wada yaacaya oo maxaa la yiraahdaa dhalinyarada si noloshoodu maareeyaan nolosh familygoodu maareeyaan wada socdaan sababtuna waxay tahay dhalinyaradii kii wax barta iyo kii skills kale caadi iskale intaba shaqo ma helayo wadanka kama helayo kii wax barto kaleeto maanta haduu ama wasaaradda shaqo ka doonto ama maxaa la yiraahdaa degmo shaqo ka doonto ama meesha rabo kulay waxa waaye waxa jirto waa aragtida dowladda Soomaaliya waa 4.5 waxa la yiraahdo maanta aqoon aan leeyahay tagtad shaqo ama wasaaradda shaqo uga baahato ma meel kale uga baahato meelaha caadiga xitaa private public kaliya maahan waxa waaye inaad yaa tahay iyo maxaa la yiraahdaa ka mas'uula iyo maxaa la yiraahdaa nadarka meesha malay Soomaalida 99% waxa waa shaqo waxa isku siiya nadarka meesha malay marka dhalinyarada waxa ku kaliftay inay baxaan oo madaariba ku galaan si kala ku baxaan inay wadanka ka tagaan sababaha ugu weyn ku kaliftay waa maxaa la yiraahdaa waa shaqalaanta wadanka ka jirto ayada awal wadanka wadan buur iska faqiir iska yahay haddana in shaqada la isku siinayo 4.5 iyo reebel ma tahay marka caqabad weyn ka jirto wadanka dhalinyarada shaqalaanta maxaa la yiraahdaa ku keentay inay baxaan ku keentay waa taas aan dhigi karaa inta hadda aad ogsoon tahay ma jiraa qof ama adiga ama asxaabtaada kamid ah oo inuu shaqo doontay shaqadiina qabiil ku waayay waa aqoontiisa ku waayay in badan anaga ugu dhacdo qof kale inta la gaarin waa gartay inta qof kale la gaarin baan ugu dhacday waxa waa meel shaqo u doontay
meel xarumaha soo maxaa la yidhahdaa muqdisho adigoona magaceeda aan sheegay sida caadiga marka meeshii markaan tagay oo maxaa la yidhahdaa interview waxbaa la qaaday dhowr qof baa meeshii ku tagnay markaa meeshii tagnay interview waxaa soo dhamaysanay kabacdi meeshii ku laabana haddana anagoo isla shaqadiina weyniyey hirgashay oo maxaa la yidhahdaa waa shaqay doontiin kabaxa lagu yidhahdaa adeerka xildhibaankaaga sheeg maxaa la yidhahdaa ma leedahay qof ganacsado waalidkaaga iyo waxyaalahaas inaan shaqadii marka dambeetana uga soo tegay oo maxaa la saameyn ay ugu yeelatay shaqadii markaan saa ku waayay in adeerka iyo xildhibaan iyo wasiir ma leedahay taa shaqadii uga soo tegay okay intaas haddaan kasoo gudubno su-aashaan waa su-aal kaftan nimco waxay ku leedahay nimco waxaa la arkaa iyadoo ururada dhalinyarada ku jirta iyadoo waxbarashadii yacni wax baranaysa oo dhowr jaamacad inay wax ka dhigata laga yaabo iyo adigoo hore iyo gadaal u socda adigoo asxaab badan leh adigoo sometimes debateska oo siyaasadaha iyo waxaas ka qayb galaya oo socda su-aasha waxay ku leedahay nimco xiriirka iyo hasaabaha sidee isku yihiin mise ma jiraan qof ay wax isla wadaan nimco زينو برافيلا كفعلا كودي لكن waxaa sheekadaada waxaa waa la soo saacada yacdi koodi su'aashaas naftu kugu soo lahaatan laakiin hadiya soo gaadii marka su'aashaas jawaabteeda maxaa leena برافيلا كفعلا insha Allah mar kale iyo kulan kale aad ma santahay ugu dambeyntii nimco boqolkiiba 75 wadankeena waa dhalinyaro dadka jooga dunida kale waxaa ku badan dadka waaweyn wadankeenana waxaa ku badan dhalinyaradii caqabado doonta iska haystaan ha iska rafaadsanaado bal wax aad kula dardaarmi lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed bal hal iyo labo aad ma santahay walaalkay Xuseen walaahi horta waa run Soomaaliya wadanka Soomaaliya waxa u badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa waa boqolkiiba 75 wadanku waa dhalinyaro sida la sheego inkastoo aan boqolkiiba 75 dhalinyarada wadanka aan ka muuqan saameyntooda iyo maxaa la yiraahdaa hogaaminimadooda inta aan la arkin marka walaal dhalinyarada waxaan kula dardaarmay mid ku badartay waxbarashada dhanka waxbarashada inaad ugu dadaalaan oo maxaa la yiraahdaa fursado badan ee waxbarashada ee maxaa la fursado badan ay siiyaan inkastoo qof walba uu dhalinyarada ay ku leedahay maxaa wax ka baranayaa because waxbarashadeeda inuu ku intifaaci maayo waxaa jirta maxaa la yiraahdaa 4.5 wadanka ku jiro waxa waaye meel tago maxaa la yiraahdaa shaqadeeda inuu mal isiinayo oo waxbarashada lagu qaadanayo laakiin waxa lagu qaadanayaa reebel iyo wasiirka iyo xildhibaankaaga laakiin taasna waxa dhici doona insha Allah waxa waaye waqti wuu socdaa kulli waxa waqtiyo badan inta ka adag ku soo gudubnay waxa weeye intaan in ka sii fiican waxa la yiraahdaa dhalinyarada fursado badan ay maxaa la yiraahdaa ay gaaraan laga yaabaa marka horta midka waxa la yiraahdaa waxbarashada xoog la saaray mid dalban waxa la yiraahdaa dalka ninka iskale waxa waa inta oday ugu ordi lahaydeen oo maxaa la yiraahdaa aad qurbe ka aadeen wadan kasta maanta ku nooshiin waxa dhistay dhalinyaro dhisatay marka waxaan dhihi lahaa dalkiina maal kasta ku soo laabta waxa waaye asaga waxa waa u noqda maxaa la yiraahdaa ki shaqaalo u noqda asaga waxa printer ha ahaato ama waxay noqoto bayna wadankiina ku soo laabataan maxaa la yiraahdaa dadkan inka hoosay masaakiinta ama qofkii caafimaad bartaa iyo kii maxaa la yiraahdaa teknolojiyada bartaa in qofkii markaas dadku u baahan yahay dalka u baahan ma firiha ku shaqeynaysa kale u baahan yahay dalka marka waxaan dhihi lahaa dalkan ku soo laabtaan intii ka baxday maxaa la yiraahdaa dalkan ayaga meel gaarsiisan kara odayaashan iyo waxaan maxaa la yiraahdaa iyo ayaa ka saaran kara inay dalka ku soo laabtaan waxbarashada ku dadaalaan maxaa la yiraahdaa kana dhex muuqdaan saameyn ku yeeshaan hadii siyaasad noqoto iyo hadii maxaa la yiraahdaa dhan kale noqoto aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya intaas ku soo koobina barnaamijkeedin gaarka aan uga hadlayna arrimaha dhalinyarada iyo caqabadaha soo wajaha markii wax baranayaan iyo markii shaqo doonka intaan iyo kulan dambe assalaamu calaykum